sababaha guusha lagu gaadho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kanaalkeena. Haddii aad ku cusub tahay, saar subscribe. Haddii aad fiidiyodan ka hesho, like saar. Maanta waxaynu ku eegi doonaa videogan waxaynu ku eegi doonaa sababaha lagu gaadho guusha. Haddii aad rabto inaad hawl ama mashruuc qabato, isku day inaad u qabato waqti hore oo aanad dib u dhigan hawsha. Bilow isla waqtiga aad go'aan ku gaadhay inaad hawsha qabato. Baadh dadka guuleystay sheekadooda si aad u ogaato kuna noqoto dhaqaajiye ama motivation. Adigu isku noqo maamule, cid kale ha ka sugin inay ku maamusho ama ay maarayso noloshaada si dadban iyo si muuqataba. Ha isku canaanin khalad aad gashay, hana ku celcelin maskaxdaada xusuusta khaladka aad gashay. Keliya ka qaado inaad wax ka barato khaladka. Iska jooji inaad hawl kasta u qabato si aad lacag u hesho. Isku day inaad noqoto mid ka faa'iida waxyaabo kala duwan. Isku day inaad dadka ka kasbato sharaf iyo ixtiraam adiga oo ixtiraamaya iyaga. Noloshu waa iskuulka ugu fiican, ma aha jaamacadda ama college-ku meesha keliya ee wax lagu barto. Waxa aad wax ku baran kartaa waa nolosha, adigoo ka faa'iideysta khaladaad badan ka faa'iideeya. Isku day inaad dadka caawiso, ha yaraato ama ha badnaato. Marna kaa khasaari mayso hawsha wanaagsan aad qabataa if iyo aakhiraba.